نبض كوذا ووطني وحيلا النعب ووطني وبدن دورا ووطني وطنك دسيا ووطني وشاد ورطا ووطني taageerayaashan oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanada Nasiye, Naqdhabeejo, Geedihaan iyo Beer oo ka soo diga rogtay xisbiga muxaafidka ee Kulmiye ayaa habeennimadii xalay xisbiga mucaaridka ee wadani munaasabad soo dhaweyn ugu sameeyay Hotel Palace ee magaalada Burco waxaana munaasabadan ka dhex muuqanayay haldoorka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada ka soo jeeda beeshani munaasabadan xisbiga wadani ku soo dhaweynayay taageerayaashan ayaa waxa goobjoog ka ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo madax kale oo iyaguna ka tirsan xisbigani madashan waxa ugu horeynba ka hadlay Caaqil Xandulle Mukhtaar Axmed Cali iyo waxgarad kale waxayna sharaxeen sababaha ay ku doorteen inay cududooda taageero ku biiriyaan xisbiga mucaaridka ee wadani shalayta haddaanu islahayn kulmiye dadka waxba u qabanayaa aanu afkooda ku hadlaynay maanta waxaanu aragnay inaanay kulmiye dadka iyo dalka midna dan u haynin annaga ka tanaasulay annaga xisbiga wadani raacnay oo dadka yagii u tilmaanay maantana halkaasay barwaaqayadani ku jirtaa waanu ka fogaanay kulmiye wadani baanu u guurnay cabdiraxmaan baanu dooranaynaa isaga ayaa noqon doona insha Allah madaxweynaha dalka xisbiga wadani inuu gasbaday qalbiyadii dadka markii uu la yimid inaan barnaamij sax ah oo aan khiyaamo ku jirin markii la arkay inuu gudoomiyahan xisbiga wadani ka sharaxay uu ahaa gudoomiyihii golaha baarlamaanka tijaabooyin badanna laga soo qaaday shacabku wuxuu doortay inuu doorto xisbiga wadani midda kale waxaanay beeshani uga hadhayn xisbiga wadani baa jirta dee waxaa ku jira Xirsi Xaaji Cali garabkiisaanu taagnaanaynaa inta naftu naga baxay waxaynu xisbiga wadani ku doorannay waa isbeddel doonka waxaynu ku doorannay waa xusbi tirada la wada leeyahay waa xusbi qofka taageerada ka iyo ka hogaamiyaha ka ay isku rayi yihiin waa xusbi musharaxiisu uu yahay musharax nin walba u soo istaagaya in ay tahay xisbiga wadani cod ay siin doonto hiil iyo hooba isla garab taagi doonto maamuuska nololeed xisbi ku macneeyo lagu wada midoobo jaahil maagistiis iyo midab soo aqoono maskaxdiisu diinta wadani loogu magac daray mas'uuliyiin iyaguna ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani oo halkaasi ka hadlay ayaa hadallo soo dhaweyn ku qaabilay beeshani ku soo biirtay xisbigooda wadadaanu aad isu jecelahay waxaanan qirayaa inay marka gobolka Togdheer laga hadlayo beelweynta reer Biniin inay tahay beesha ugu ballaadhan gobolka Togdheer waxaan leeyahay abtiyaal iyo habar yaro iyo ilma abtiyaal soo dhawaada waxaan leenahay ilma adeerayaal soo dhawaada ku soo dhawaada wadadiisa ahayd baa garatee ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray hogaamiyaha xisbiga mucaaridka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaanu xisbiga kulmiyay iyo xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay bulshada Soomaaliland kala ququbayso ku faraxsanahay hiilkiina ayayna iskaga garab taagtaan aad baa ugu mahadsantiin anana waa idinku soo dhaweynaynaa walaal kulmiye tolay reer baligu doorta buu leeyahay laba reer baynu nahay iyo saddex reer baynu nahay buu ku doodayaa inana waxaynu leenahay qaranimo inagu doorta soo qaranimo wax kuma dooranno war qarannimada wax ku doorta aqligiina ku doorta kulmiye waxaynu isku haynaa war dadku waa xoro waa dimuqraadi war ma way noo xidhayin bule ma xidhantiin midda u xidhantiin midda u afduubantiin horumarkii soconayay baa laaluush loo bedelay waxaanu leenahay war ka daayo ummadda wax ugu qabta war ummadda wax u qabta war ummadda cashuurta umay bixinin in dadka lagu kala laaluusho Maxamed Jookar telefishinka caalamiga Ariel TV Burco.